السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada saaxiibayaal. Haddii aan ku su'aalo daawade, imise saacadood ayaad ku qaadataa daawashada shaashadaha sida telefoonka, kombiyuutarka, tabletka ama telefishinka? Daraasado badan ayaa isku raacay in dadka da'doodu ay ka weyn tahay 18 sano, celcelis ahaan ay isticmaalaan shaashadaha ku dhawaad 8 ilaa 10 saacadood maalintii. Runtiina waa saacado badan oo lagu qaato daawashada shaashadaha hortooda, hadday ahaan lahayd shaqada ama waqtiga firaaqada. daawashada shaashadaha digitalka awgeed waxa uu qofka ka qaadi karaa xanuun lagu magacaabo computer vision syndrome. xanuunkaas oo keenay dhibaatooyin dhanka aragtida ah, indhaha oo qalala, aragtida oo daciif noqota, iyo madax xanuun joogto ah waa astaamaha lagu garto xanuunkan. sidoo kalena waxaa ka dhasha xanuunkan qoorta iyo garbaha oo qofka xanuuna. caadi ahaan waxaan libiqsanaa ama nibirsanaa qiyaastii 20 ilaa 25 jeer daqiiqadii, waxayna indhaha u suuragelisaa arrintan in ilmadu ay si siman ugu faafto, taasoo indhaha ka ilaalinaysa inay qalalaan ama ay xanuunaan. laakiin dhakhaatiirta indhaha ayaa sheegay in dadka ay libiqsadaan in ka yar inta caadiga ah marka ay wax ku akhrinayaan, ku daawanayaan ama ay ku ciyaarayaan shaashadaha. dhammaanteen waxaan waqti badan ku bixinaa daawashada shaashadaha, arrintaasina waxay saameyn xooggan ku leedahay indhaheena. inkastoo xalka ugu fiican ay tahay inaan yareeno waqtiga aan ku bixino daawashada shaashadahaas, haddana dadka ku shaqeeya ama ay qasab ku tahay isticmaalka kombiyuutarada xilliga shaqada way ku adag tahay halkaas. laakiin arrinka farxadda leh ayaa ah inay jiraan tallaabooyin aad u fudud oo aad qaadi karto, kaagana dhigaya isticmaalka shaashadaha mid aad ku raaxaysato, wax dhibaato ahna aan u geysanayn indhahaaga. haddii aad ku isticmaalayso aaladaha shaashadaha leh sida telefoonkaaga meel iftiin badan leh sida bannaanka oo kale, waxaad ku qasban tahay inaad kordhiso iftiinka telefoonkaaga. si la mid ah, haddii aad ku dhex isticmaalayso meel mugdi ah oo aan iftiin badan lahayn sida qol aan leyr lahayn oo kale, waxaad u baahan tahay inaad gaabiso ama aad yareyso iftiinka telefoonkaaga. arrintaasina waxay yareynaysaa khatarta iyo saameynta ay shaashadaha ku leeyihiin indhaheena. libiqsigu waa isku qabashada joogtada ah ee ay indhaheena sameeyaan, waana mid ka mid ah nimcooyinka uu Allah subxaanahu wa tacaala inagu deeqay. libiqsigu shaqo badan ayuu qabtaa, indhaha ayuu qaleylka ka ilaaliyaa, waxa uuna si siman u gaarsiiyaa indhaha ilmada dufanka iyo borotiinka leh, taasoo kale ilaalinaysa indhaha iyo baalkan kore ee marna furmaya marna xirmaya inay istaabtaan ama isxogaan, taasoo haddii ay dhacdo keeni karta xanuuno badan oo indhaha ah oo ay ka mid yihiin aragga oo yaraada, caabuq ka dhasha dhaawacaas iyo wixii la mid ah. aan yara daawano dhakhtar Shiine oo arrintaas sharaxaya. qofku waxa la yidhaahdaa maalintii 16,000 jeer ayuu ilbiriqsadaa, ama dadka soo jeedkoodu badan yahay 20,000 jeer baa way gaadhaanba. ilaahay indhaheena wuxuu ugu talagalay ilmo dufan leh oo borotiin leh oo isha iyo baalka kale ilaalinaysa. jafaafku waa waxa ugu badan ee dadku noogu yimaadaan. dhakhaatiirta indhaha sababta loogu tago ugu badan waxa weeye indha qallayl dadka ay ka cabanayaan. sidaan soo yara sheegnay, qiyaastii celcelis ahaan qofka waxa uu ilbiriqsadaa 20 ilaa 25 jeer daqiiqadii. laakiin markaad isticmaalayso shaashadahan digitalka ah, waxaa qasab ah inaad yareynayso tiradaas, maadaama aad diiradda saarayso waxa aad daawanaysid. taasi ayaana keenaysa qaleylka indhaha. si aad u yareyso khatartan indha engaga ah, markaad isticmaalayso shaashadaha 20kii daqiiqaba 10 jeer ilbiriqso adiga oo joojinaya isticmaalka shaashada. kadib indhaha si tartiib ah isugu xir sida qof hurdaya oo kale. tani waxay kaa caawin doontaa in indhahaaga ay dib u soo celiyaan tamar badan, ilintii borotiinka ahaydna la soo daayo. marka laga soo tago samaynta libiqsiga joogtada ah, isku day inaad indhaha siiso nasiino joogto ah. waxaa jira xeer lagu magacaabo 20-20-20 oo ay dhakhaatiirta indhaha ku taliyaan in dadka ku badan isticmaalka shaashadaha ay si joogto ah u isticmaalaan. xeerkan waa jimicsiga indhaha, wuxuuna soo jeedinayaa inaad qaadato nasasho 20 ilbiriqsi ah 20kii daqiiqaba, adiga oo eegaya 20kaas ilbiriqsi meel aan ahayn shaashada, ugu yaraan ku jirta 20 dhudhun. daraasad la sameeyay ayaa sheegaysa in isticmaalka xad dhaafka ee tiknoolajiyadda digitalka ay hoos u dhigto aragga, awoodda maskaxda iyo hurdada qofka. way adag tahay in la dhaafo aaladaha digitalka ah sida telefoonada, kombiyuutarada iyo wixii la mid ah, laakiin ugu yaraan inaan xakameyno ama yareyno isticmaalkooda waxa ay muhiim u tahay guud ahaan caafimaadkeena, gaar ahaan caafimaadka indhaheena. waxaan kula wadaagayaa qaar ka mid ah talooyinka ka caawinaya xakameynta isticmaalka xad dhaafka ah ee shaashadaha. qodobka koowaad, iska xir fariimaha. haddii aan rabno inaan xakameyno isticmaalka shaashadaha sida telefoonka, waxaa qasab ah inaan iska xirno fariimaha ama notificationska telefoonka, kuwaasi oo nagu riixaya inaan isticmaalno telefoonka. qodobka labaad, ku xadid hubinta telefoonkaaga saacadiiba hal mar. inta badan dhalinyarada ama inta haysata telefoonadan casriga ah waxaa macquul ah inay hubiyaan telefoonkooda halkii saacba in ka badan 20 ilaa 30 jeer, taas oo keenaysa inaan ku fogaano isticmaalkiisa mar walba oo aan furno.
xadid hubinta telefoonkaaga kuna soo koob hal ama 2 jeer saacad kasta. isku day inaad telefoonkaaga ula dhaqanto sida qofkii oo kale. haddii aan ku weydiiyo adiga oo shaqo ku jira ma u ogolaan lahayd in qof mar walba uu ku qaso oo uu ka mashquuliyo shaqada aad hayso? dabcan maya. waxaad u sheegi lahayd qofkaas inaad hawl hayso kana yarayso mashquulka iyo qaska uu kugu hayo. sidaas la mid ah telefoonkaaga ula dhaqan sida qof oo kale. hana u ogolaan in dhowrkii daqiiqaba uu markaa mashquuliyo howlahaaga muhiimka ah. daawadayaal waxaan rajeynayaa inaad waxun ka faa'iiday insha Allah qodobadan. muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. inta aan ku kulmi doono mowduuceena xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.